daawade bal nala eeg dhacdooyinkan argagaxa leh. marka hore fiidiyowga like saar si uu dadka u gaadho, aragtidaadana hoos noogu reeb. waa dhacdooyin cajiib ah, waxay ka dhaceen labaduba dalka Hindiya. fiidiyowgan idiin muuqda halkaa waxaa jiifa laba qof, waa nin iyo gabadh isjeclaa. waxay go'aansadeen inay isku dul dhintaan, dabadeeto iyagoo halkaa maraya ayay isku dhegeen, dabadeeto sidaas ayay isugu dul dhimanayeen. go'aankoodu wuxuu ahaa inta ay dhimanayaan inay sidaa u jiifaan bartaa oo ay sidaana isugu dheganaadaan. waa arrin mucjiso ah. waxaan maqli jiray qofkaasi qofkaa ama halkaas waxaasu ku dul dhinta. iyagase go'aankoodu waxay moodeen isku dul dhimashadu inay malaha tahay tan sidaa la isugu dheganaanayo. waa 6 casho inta ay halkan jiifeen sida ay dadku sheegeen, laakiin dadka ayaa markii dambe si qasab ah sida aad arkaysaan u kala furfuray. eega, gabadhii waa la jiidayaa, ninkana xaggana loo jiidayaa. gabadhii baa la jiidayaa, ninkana xaggana loo jiidayaa. gabadhii baa la jiidayaa, ninkana xaggana loo jiidayaa. dadkiiba oo dhan baa isugu yimid, gacmaha laga furfurayaa, mid waliba ka kaluu gacmaha haystaa, mid way is haystaan. go'aankoodu waa inaan la kala furfurin ay sidaa isugu dul dhintaan, laakiin aakhirkii ugu dambeeyay wataa la kala furfuray. dadkii waa kuwa kala furfuray, waxay ku guuleysteen in dadkii 6 casho meesha jiifay sidaa loo kala furfuro. ka warrama Soomaalida isjecel, go'aan miyay ku qaadan karayaan? ama kuwa isqabaaba go'aan miyay ku qaadan karayaan inay sidaa isugu dul dhintaan? caqligii leh bal yara qiimeeya. qisada labaad waa ninkan sawirka idinka muuqda dharkiisa casaanka waxa weeye uu ka buuxo, sida ay reer xamarkuna yiraahdaan guduudka. hadaba labada dhinacba inayna fahmaan. kadib ninkani muxuu soo sameeyay? ninkani booliiska ayuu sidan ugu yimi isaga oo sida mayd madaxii. waa qof uu soo dilay madaxii. talow hadaba su'aashu waxa weeye qofka uu soo dilay muxuu ahaa? hadaba daawade, qofka wax soo dilay wuxuu ahaa nin walaashii kufsaday isaga. dabadeeto waxa uu go'aan ku qaatay inuu cadaaladda gacantiisa ku raadiyo ee aanu cidna u caban. booliskii saldhigga ugu dhowaana wuxuu u keenay madaxii ninkii walaashii kufsiga u geystay. hadaba Soomaaliya ama Soomaalida dhulkeeda imise kufsi ayaa maalintii ka dhaca? maxaase lagu xaliyaa?